السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين با سلام كدب waxaan dila soo wadaagi doonaa barnaamijyo ku saabsan caqabadaha guusha oo mar walba haysta dadka ku guuldareysta nolosha ka siyaasi ahaan markaan xagga siyaasadda u eegno intaasoo sano qof hadda siyaasi ah misana marnaba aan ka midho dhalin xagga ganacsiga nin ku jiray 14 sano iyo 10 sano in ka badan misana maanta aan marnaba horumar gaarin xagga nolosha qof hoos u dhac mooyaane aan korba u kacayn xagga ciyaaraha qof maanis mooyaane aan balaas behelayn marnaba iyo kuwa kale oo fara badan oo aynan halkan ku soo koobi karin. haddaba si wacan u dhow caqabadahan aan mid u taaban doono anagoo soo koobayna haddii alla noo ogolaado insha Allah. waxaa ka mid ah hadaf la'aan. haddaba su'aalahan ma isweydiisay muxuu asaga horumari waayay anaan dib u dhacay? maxaa dhacda inay ku soo maraan habeeno maalmo isbuucyo bilo kala duwan oo aad weli adigu tahay waxna aanad iska bedelin? ma dhacday in sanad ka hor aad qiimaysay heerka aad joogto ha ahaato dhanka aqoonta dhaqaalaha cibaadada dhaqan wanaagga iyo natiijada ku soo baxday meel ma ku qoratay? maanta oo aad qiimeyn labaad ma isku samaysay? maxaa iska kaa bedelay? ma horumartay mise waad hoos ayaad u dhacday? ma isweydiisay weligaa su'aalahan noocan oo kala ah? maxaa asaagay u horumaray ana meeshii aan u taagnahay? muxuu saaxiibkay u horumaray ana meeshii aan u taagnahay? maxaa noloshaydii ka dhigay mid isku mid ah maanta shalay ayay la mid tahay noqon doontaa? maxaa sababay inaan saas noqdo oo aan tallaabo hore u qaadi waayo? maxaa noloshayda ka dhigay mid giraangir wareegaysa oo meeshii shalay ka tagtay beritona ku soo laabanaysa? haddaba su'aalahaas iyo kuwa la mid ah waxaa keeni karaa amaba sababi kara qofka oo ku habsadaan hal shay oo ah inuu qofku ku noolaado nolol ku astaysan hadaf la'aan ujeedo la'aan qorshe la'aan. inay noloshaas noqoto waxaa keenaya dabar xoog weyn ayaa ku xidhan dabarkaas oo ah higsi la'aan. haddii aynan hadaf yeelan sidee nolosheena noqonaysaa? haddii nolosheenu hadaf la'aan noqoto waxay noqon mid ku astaysan mushkilado iyo dhibaatooyin isdaba jooga halka dadka noloshoodu ku dhisan tahay yoolal iyo higsi ay higsanayaan ay tahay fursad ha kuu dhiibto. nolosha aan ku qotomayn yoolal la higsanayn waxa weeye nolol ku tilmaaman jahwareer aan lahayn meel looga baxo amaba. haddaba bointiga labaad waxa weeye qorshe la'aan. maxay tahay qorshayn? maxaa loola jeedaa nolol qorshaysan? nolol qorshaysan waxay ka dhigan tahay inaad jawaab u hesho sidee ku gaari karaa yoolalkan aan higsanayo? maxay yihiin tallaabooyinka laga rabo inaan qaado si aan u gaaro yoolalkayga? su'aashan markaad jawaab u hesho ayaa la dhihi karaa waxaad tahay qof qorshe u degsan yahay noloshiisuna qorshaysan tahay. ma u aragtaa in qorshe la degsado ay muhiim tahay faa'iidada? dadka qaar marka la sheekaysanayso weydiisana su'aashan maxaad ka aaminsan tahay inuu qofka qorshe yeesho waxaad arkaysaa dad badan oo kugu jawaabaya anigu ma aaminsani in qorshe dejin faa'iido weyn nolosha ku soo kordhiso bal waxaan u arkaa in waqti lumis tahay. waayo wax badan ayaan ka qayb galay meelo lagaga hadlayo ama la isku tababarayo habka qorshe loo dejiyo. waxaa badanaa waan isku dayay inaan qorshe degsado hase yeeshee isku dayadii waxay ku dhammaadeen guuldaro iyo waqti lumis. xaggee baad u socotaa? haddii aysan ku caddayn kuna qorshaysnayn meeshaad u socoto
sooma habboona inaad isweydiiso su-aashan noqonaysa xaggee baad u socotaa, halkee reerka ku furaysaa. in qof kastaaba isweydiiyo su-aashaas ayaa waxaa ka dhalanaya inuu qofku qorshe samaysto, yoolna degsado. eeba ayaa 14 qarni ka hor ku soo dejiyey subanaheena, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaat, aayad xambaarsan su-aashan. alla wuxuu yidhi qaala tacaala fa ayna tadhabuun. rabbi isagoo aadanaha la hadlaya ayaa ku yidhi halkee u socotaan, halkee aadaysaan markaad ka tagtaan oo aan ka leexataan wadadan idin jeexay ee nebi maxamed calayhi salaam idinku soo dhiibay. halkee u tagteen qur-aanka raacitaankiisa iyo ku dhaqankiisa, halkee naftiina adduunyo iyo aakhira. waana su-aalo muhiim ah oo loo baahan yahay inuu qofku isweydiiyo, waayo alla inooma abuurin inaan noqono dad iska socda oo aan aqoon meeshay u socdaan. sidaas darteed qofka waxaa laga rabaa inuu ka mid noqdo guulaystayaasha. waa inuu isweydiiyaa su-aalaha noocan oo kale ah, sida maxay yihiin yoolalka noloshaada, yoolalkaad aad higsanayso, ama yoolkaygu ma yihiin kuwo u kala qaybsan yoolal dhow iyo kuwo fog. maaha qof diyaar u ah inuu gaaro heerka hadda uu joogo mid ka fiican oo ka sareeya. diyaar ma u ahay inaan ka dhabeeyo hidilooyinkayga amaba hamiyadayda. waxa ah arrin laga naxo inaad aragto dad badan oo aan aqoon meeshay u socdaan, weliba ay ka muuqato siday u dhaqmayaan inay yihiin dad aan dadka ka lahayn una aabba yeeleen inay armiyaan noloshan isku dhex yaacsan ee ay ku dhex jiraan si ay uga baxaan, iskuna haysta inay ku nool yihiin nolol heer sare ah oo hamiyeysan. qofkaas oo kale waxaa lagu tilmaami karayaa qof bilaa hiigsiya, bilaa yoolna. haddaba si aad hiigsi iyo yool u yeelatid, samayso xaggee u socotaa. ka feker, ma leedahay qorshe dhow iyo qorshe fog, hiil dhow iyo hiil fog oo aad is leedahay gaadh haddii alla ku ogola. caqabadaha ka hor yimaada guusha ayaa waxaa ka mid ah isku dheelitirnaan la-aanta nolosha. haddaba guusha dhabta ah waa mid isku dheelitiran oo ku salaysan dhammaan qaybaha nolosheena ee kala duwan. ay kuugu suurto gasho inaad gaarto gool isku dheelitiran, waxaa lagama maarmaan ah inaad dejisto qorshe miisaaman oo aan dhinacna u dheeliyeyn, oo ku dhisan xagga cibaada ahaan iyo xagga caafimaad ahaan. labadaas aynu kasoo koobaynaa. xagga cibaada ahaan waa inaan ogaanaa tiirkan la-aantiis noloshu inay noqonayso dhalanteed oo aan xaqiiq lahayn. qofka ku guuldaraysta xaqiijinta tiirkan isagoo inta kale noloshiisa ku guulaystay, ha ogaado inuu ku nool yahay nolol nuxurkii laga qaaday, qiimo weynna aan alle agtiisa ka lahayn. waa inaad ku tashataa wax kastoo aad qabanaysid inaad aakhirana aad ku guulaysatid, adduunkana aad guul u eegtid. tiirkan oo aan ku guulaysano waxay ka dhigan tahay in nolosheena oo dhan helno degenaansho iyo xasilooni dhan oo welwel la-aan iyo dhibaato ay ka maqan yihiin. tiirkan wuxuuna siinayaa awood inoo suurto gelinaysa inaan hore uga sii tallaabno nolosheena inta ka hartay. haddaba si aan u fahanno tiirkan qiimaha uu ku fadhiyo, bal aanu isla fiirino su-aalahan daaha inoo ka qaadaya qiimaha tiirkan nolosheena miisaanka kaga jiro. anigu ma ahay mid raalli ka ah xiriirka aan la leeyahay allana ii abuuray. lambar 1. lambar 2, waajibaadka allay saaray ma ahay mid si fiican uga soo baxa amaba u guta.
lambar 3 ma ahay mid dadka tabaalaysan ee baahan gacan qabta amaba u gargaara. intaa kadib waa inaad u imanaynaa amaba qaybteena labaad ay ahayd ilaalinta caafimaadka. ta koowaad maxay noo ahayd qofka cibaadadiisa. xagga cibaadadana weegaynay, iminkana waxnu eegaynaa xagga caafimaad. waayo cibaado qofku markuu caafimaad helo ayuu noloshiisu isku dheelitirnaanaysaa wuuna cibaadaysan karayaa. tiirkan wuxuu muhiim u yahay in la gaaro tiirarka intooda kale, waayo qof caafimaad qaba ayaa cibaadaysan karaa, naftiisana horimarin kara. sidaas awgeed waynoo ka kooban yahay in aan ilaalino caafimaadkeena. waynooga baahan yahay inaanu ilaalino caafimaadkeena, waayo inaanu daryeelno jirkeena. taasna waxay ku imanaysaa inaanu quudanno cunto isku dheelitiran. bal su-aalahan isweydii: ma hooseeyaa mise waa fiican yahay? goormay kuugu dambaysay baaritaan guud aad samaysay? miisaanka jirkaygu munaasib ma yahay mise maaha, mise waxbaa ku siyaadaa? ma jiraan caadooyin xunxun oo caafimaadkaaga dhaawacaya? sida maandooriyaasha ma isticmaashaa, sida sigaarka, qaadka, khamriga iyo waxyaalihii la mida? markaad su-aalahaas noocaas oo kale ah aad jawaab u hesho ayaad ogaanaysaa meelahaad ka liidato ee u baahan tahay inaad iska dhisto ama si aad uga hortagto amaba aad iskaga ilaalisid caqabadahan guusha. waa inaad samaysaa hadaf. marka hore waa inaad hadaf lahaataa oo aad hadaf samaysaa. kadib waa inaad wax qorshaysaa. qorshahaas oo aad ka eegaysid waa inaad lahaataa qorshe dhow iyo qorshe fog. kadib waa inaad dheelitirnaataa xagga nolosha oo aad mar walba ka warhaysaa xaggay tahay xagga xidhiidhka iyo adiga iyo alla idin dhexeeyay, iyo hadday tahay xagga caafimaadkaagaba. intaa kadib waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kulanti dambe oo wanaagsan. haddaad ku cusub tahay channelkeenan, please subscribe garee, like-na sii, share-na samee si videogan markaste aad u daawatid. channelka wax kastaan soo gelino ha ilaawin inaad subscribe garaysid.